wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Siciid Sulum Maxamed safar shaqo ku yimi magaalada Burco waxa wasiirku booqday mashruuca calafka xoolaha oo in muddo ka socday seeraha banka Aroore isagoo sidoo kalena wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland seeraha banka Aroore ku wareejiyay gaari agabkiisa caafimaad u dhameystiran yihiin kaasoo adeegsan doonaan kooxaha caafimaadka ee ka hawlgala seeraha banka Aroore mashruucan ayaa waxa iska kaashaday wasaaradda xanaanada xoolaha SDF waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer madax dhaqameed iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ugu horeynba waxa ka warbixiyay mashruucan agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Farxaan Axmed Yuusuf waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan mashruucan oo fulintiisu ay bilaabantay sanadkii 2021 haatan ku dhow gabagabo waxa uu ka kooban yahay dhowr qaybood oo saameynaya wax ka qabashada horumarinta caafimaadka xoolaha wax ka qabashada daaqa iyo biyaha xoolaha wax ka qabashada qaab dhismeedka xaruntan iyo sidii mustaqbalka u shaqeynayso cilmi baarista xoolaha iyo calafka xoolaha kubcinta aqoonta bulshada iyo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee halkan ka shaqeeya iyo sidoo kale inay noqoto xarun loogu talagalay inay bulshadu ay ku badbaadaan waqtiyada adag ee jiilaalka mashruucaas oo ka kooban 5 waaxood waxa imika uu marayaa gabagabo sida ay muuqata waxaana mashruuca ku baxay lacag loogu qoondeeyay xaruntan iyo xarunta kale magaran sayntiga doonay xaaxay ee Odweyne lacagtaas oo dhan 3 milyan iyo 200 kun dollar marka mashruuca balaaran oo qaybta maanta ay joogno ay tahay ayuu gaarigana uu qayb ka yahay gaarigan oo ka mid ah garanaysa qaybta caafimaadka ee lagu talagalay inuu bulshada gobolka Togdheer u shaqeeyo xaruntana biiskiisu noqdo oo xoolaha halkan la keeno iyo jiida balaaran ku hareeraysan baa inuu u adeego lagu talagalay dhankoodana waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo taliyaha ciidanka booliiska gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan mashruucan wuxuu kamid yahay mashaariicda gobolka ka hirgalay kuwa ugu qiimaha badan leh ee guuleystay gobolkuna u baahnaa maadaama gobolku yahay gobol xoolo dhaqato ah waxaanu rajaynaynaa inaanu intaa ku dhamaanin gabagabo ku dhaweeyaan maqlayo inaanu intaa ku dhamaanin waxyaabo kalena lagu soo kordhiyo ama beelaha kale gaar ahaan in xoolo dhaqatada la tababaro sidii xoolaha ugu dhaqan lahaayeen sida casriga ah xoolaha loo dhaqdo sidoo kale waxa jirta cimiladu isbedel cimilaad baa yimi oo imaka adduunyadii sidoo hore ma aha waxaan rajaynayaa in uu dadkeena baro sida loola noolaado cimilada isbedeshay habka loola noolaan lahaa maanta maalintii ka horeysay inuu nimi aynu halkaa joogno dhismaha hortiisa iyo maanta oo aynu halkan joogno oo aan sanad ka soo wareegin indhaheena macalinada sida ay u eg tahay oo aad iyo aad u kala gedisan waxaan rajaynaynaa in inta ay ka sii socoto in kaloo ka fiican ana ay sanadkiisa ay timaado xooluhuna waa lafdhabarkeena waa waxaynu ku noolahay marka maadaama xoolaha ku noolahay in meeshii xoolaha seeraha ugu weyn dalka isla markaana gobolka Togdheer oo gobolkii xoolaha ku yaal ay noo kobocdo ay noo hagaagto isla markaana ay xawliga inta leeg ku dhaqaaqdo oo adeegga inta leeg xoolaheeni ku bixinayso oo ay tababaro badan oo kala duwan dadkii xoolo dhaqatada iyo kuwii beeraleyda ahaa intaaba ay siiyeen isla markaana ay talaaladii oo kala duwan si joogta wadaan iminkana ay heleen gaadiid cusub iyo qalab cusub annaga bushaaro gaar ay noo tahay waan uga mahad celinaynaa SDF iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiirkaba mar labaad baan ku soo dhaweynaa wasiir maalintii hore halka timina wax qabad baad waday markii aynu halka ku daafurnay maantana waynaga ku indhadugsanayna abaara badan baa soo maray oo waxaynu aragnay inayna wax kaydaba u haysan xoolaheeni abaarahayna inagu soo noqnoqday maantana meesha meel wanaagsan ba ila muuqataa oo maamul wanaagsan ka jiro waan ugu mahad celinayaa cidii ka qayb qaadatay ama gaariga keentay wasiirku hormad u yahay oo wasaaradii macnaha xanaanada xoolaha oo maanta wasiirkii socdo aan aad uga mahad celinayaa wixii laga qabtay iyo sida quruxda badan leh ay maanta halkan ay tahay shalayna cid baa haysay oo hawl baa ay ahayd waa loo soo stage badan buu soo maray meeshan markii laga shaqeynayay rag badan baa ka soo shaqeeyay maantana waxa weeye inta joogtaa inay gacmaha isqabsato oo hore loo sii mariyo ayaa waxtarkeenu noqonaya ama dowladnimadeenu ku dhisnaanaysaa waxa aan salaamaya madashan
quruxda badan ee nimcadu taallo ee barwaaqadu taallo ee indhaha raaxadeedu taallo cidda runtii ku soo tacabtay iyo ciddii wax ka soo qabatay ee ugu horreeya wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed runtii waxaa yaalla waxqabad aad iyo aad u qurux badan saacadda wasiir waxaan u malaynayaa maalintii lagu magacaabay runtii weli waa haya kaliibkii hadalkii maalintii aan runtii ku hadalay maalintii madaxweynaha aan uga mahadnaqayey magacawgaagii oo aan u arkayey in ay xukuumadda muuse biixi ku soo biirtay dadkii wax kordhin lahaa waxqabad dalka ka kordhin lahaa ayaan maalinta runtii uga mahadnaqay maantana adigaan kaaga mahadnaqaya annagu haddaanu reer Burco nahay beeraley ma nihin xoolo dhaqataanu nahay halkaasaynu marnay xuduudkaan tegey meel walba horta alxamdulilaah ilaahay baa nimco leh ilaahay baa barwaaqo leh ilaahay baa maxay tahay xamdu leh ilaahay baa horta meel walba beer ka dhigay wasiirku wuxuu noo qabtay waxa aan u aynay horaan TV-ga uga sheegay hore ayaan TV-ga uga sheegay oo khadku ku jiraa waxqabadkiisii maalintii ninkuu yidhi xafiiskaasi waa xidhan yahay inta halaadee ku baxsatay iyo inta aadhiyee ku baxsatay iyo inta Soomaalilandba maanta haysataa waa tacabkiisii uu meeshaa geliyey wax ku kordha mooyee xoolo wixii abaar dhacay jabay ma jiraan hayre oonkiyo soo aroorkaba waa axdaa loo weysku ogeyn halkan howlo badan baa ka dhacay in badan buu mashruucani kolba qof uu wasiir soo qabanayey waqtiyada qaar howlo badan baa naga soo maray sababtal fahan aawadeed iyadoo aan barcadee beeraha iyo waxqabadka noocaas aqoon laakiin waxaanu kaga nasiib wanaagsan lahay qool caday buu meel wax noo soo wada baxeen annagu waa iskaga hornimi waa ku dhimanay waxbaanu ku dillay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu awoodda isugu geynay in mashruucaasi noo socdo weli qool caday halkiisii buu taagan yahay taasna gobolka Togdheer odayaashiisa iyo deegaanka ayaa asbaabta lahaa Siciid siradii hore wuu kaga nasiib wanaagsan yahay tiraba 3 goor buu mashaariicda uu laba kaclay mar waa kii halkaa inagu shiriyey dhismuhu keenay mar labaadna wuu keenay maantana waa tii saddexaad isagana waxa la odhan jiray qofkaasi wuxuu ku leeyahay biti ama hoodo sideedaba waa nin ku leh maamulka hoodo ku leh ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed waxaana uu ku dheeraaday faa'iidada uu mashruucan u leeyahay guud ahaanba dalkani Soomaaliland horta mashruucan waa mashruuc caam ah oo Soomaaliland u dhammaad leedahay qoladan ka soo jeedana ma leh reer Burcana gaar uma leh waxqabadkan waa waxqabad 6 gobol ee dadka ka dhaxeeya waxa uu nadiira abaartii 2022 inagu dhacday ama jiilaalkii adkaaday ugu yaraan 3 gobol baa ka faa'iideystay Sool iyo Sanaag iyo Togdheer dadka qaarna waxa ay sheegeen ilaa loodii ka timi awdal in halka soo gaadhay marka xooluhu xuduud ma leh xuduudada xitaa caalamiga dawladaha ay dhaafaan oo cid ma qabsato waa heshiis caalami ah taas waa taa haddii munaasabadan maanta aan ku soo noqdo munaasabadan maanta waxay tahay sidaa la sheegay looga warramay waxqabadkii horeynu wadnay xaruntan horumarinta xoolaha halkan idinku seeraha ama seeraha aroori baa odhan jirteen laakiin annagu xarunta imika halkan aynu fadhinaa waa xarunta horumarinta xoolaha ee aroori seerihii iyo bankii oo aynu ka shaqaynayna waa inoo weheliyaa
xaruntan waxaa loogu talagalay horta waa dugsi ama waa college lagu tababarayo caafimaadka xoolaha iyo calafka xoolaha iyo wixii ku taxalluqa xoolo ee loo baahan yahay in xoolo ku dhaqmaan ama ku koraan ama ku naaxaan waxaa ka dhisnaa awal 11 guri 11 guri oo dayacmay waa la dayactiray dib baa loo dhisay waxa lagu kordhiyey 11 kale 22 oo qololkii tababarka iyo qololkii cuntada iyo kuwii jiifka ay u dhan yihiin shaqaalaha ama maxaan ku dhahay macallimiinta ama ardayda wax ku baranaysa intaa waxaynu dadaalka u samaynaynaa waxa weeye xoolaha waxaynu u dhaqaynay sidii insaan awalka aynu ku helay un baynu ku dhaqaynay laakiin adduunyadu waxay ku kala hormartay sida cid waliba xoolaheeda uga doonto cad iyo miisaan siyaada ah oo caafimaad qaba iyo caano badan waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha waxda qorsheynta iyo raggii la shaqaynayay mashruucan kala shaqaynayay oo mashruucan iyo kuwii kale gacanta ku hayeen xaaxiba ay najaxeen sidii loogu talagalay u dhaceen waxaan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta inagala joogta SDF oo ahayd hadalka in la siiyo najaxmee oo maxaad u dhawmatay diyaar mate على كل حال قدومي كحيين كي SDF inala jooga ninka gaabane yamaniga waa iga arkaysaana deegaankana ah marka gaarigan leeno keenay ugu dambeeyay oo gaariga mobilka ah oo adee dhakhtar caafimaad xoolo oo soconaya ama xarun caafimaad oo soconaysa oo dadku u baahan yahay ilaahay mahadii waxaan ku guuleysanay intii aan joognay dhowrkii sanadood ee markaan aan joogay in aan caafimaadka xoolaha gaarsiino tuulooyinka iyo degmooyinka iyo ilaa koona dalka waxaan ku mahadnaqaynaa hay'adihii naga taageeray gaadiidka iyo ومحمد إبراهيم بريتش تيفيق قرن كالصوماليلان برعو